kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca dulansiyaadda qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn dowladda Yuhuudda ama dowladda dalkaas Israa'iil oo ku dhawaaqday inay dagaal ku qaadi doonto Iran baarlamaanka dalkaas Iran Israa'iil wuxuu ansixiyay awood siinaysa talaabo military inuu qaado karo Mr Netanyahu MBS Mohammed bin Salman wuxuu u sheegay Falastiiniyiinta inay afka xidhaan ama ay raacaan talooyinka iyo soo jeedinta Mr Trump Turkigu wuxuu diyaarsaday isla markaana uu isku dubaritay urur uu horay u sameeyay oo ah gaashaanbuur cusub qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan daawadayaasha qiimaha la wararkeena xiisaha leh kowdii bishii May saaliso ama talaado 2018 kol kale barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida aan ku bilaabay isla markaana aan ugu horeysiiyay dalka Britain ayaa waxaa markii ugu horeysay waxaa la magacaabay aan iraahdo markii ugu horeysay wasiirka arrimaha gudaha waxaa lagu bedelay nin ka soo jeeda dalkaasi Pakistan oo loo magacaabay xogayaha arrimaha gudaha dalkaasi Britain kadib markii ay casishay haweeneydii xogayaha ka ahayd wasaaraddaas ama madaxda ka ahayd ee loo jiray Amber Rudd Sajid Javid oo ayaa loo doortay wasiirka arrimaha gudaha kadib markii la sheegay in uu ku qanacday hoggaankiisa iyo hab dhaqanka wanaagsan iyo samcadda uu leeyahay bay tiri haweeneyda dalkaas ka talisay Miss Theresa May ninkan oo ka soo jeeda dalka Pakistan ayaa qoyskiisu waxay yimaadeen dalkaasi horaantii sanadkii 1960kii 48 jir dhashay 1969kii bishii July waxaana uu in badan uu ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan oo qaarna madax ka noqday qaarna uu markaasi ka mid hogaamiyay ama uu ka shaqeeyay Mr ninka la yiraahdo Sajid ayaa sida muuqata waxa uu aaminsan yahay asagu in la soo dhaweeyo dadka soo galootiga ah ee Britain soo galaya dadka ama jiilka loo yaqaano Windrush ayagu soo galay dalka Britain dagaalkii labaad ee adduunka kolkii uu dhamaaday kuwaas oo u badnaa dad xirfadlayaal ah oo doonayay in dalka Britain ay dib u habeyn lagu sameeyo ayaa dhawanahan oo dhan ka banaan baxayay hadal ka soo yeeray wasiirka xogiyihii hore arrimaha gudaha oo markaas iyadu gacanta gaaleysay dadkaasi ninkan ayaa wuxuu sheegay inuu dhammaan dadka soo galootiga ah ee dalka Britain soo galay uu arko walaaladii hooyooyinkii aabihii iyo waliba ilmaadeeradii wuxuuna sheegay inuu si weyn u xishmeed doono soo dhaweed doono isla markaana uu xuquuqda ay leeyihiin soo galootiga Britain ku sugan oo dhan cid walba ha ahaadeen ay heli doonaan xuquuqdooda waa sida uu sheegay Javid markaas ama Sajid Javid halka nagala socotaan waa Horfadhi Media wararkii dunida warbixinay dhinaca diblomaasiyadda iyo dabcan xogihii daawadayaasha qiimaha leh kolba kala socoteen Horfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay haatan dalalka Turkiga iyo Uzbekistan ayaa waxay ku heshiiyeen ama ku qancisay waa Turkiga ayaa ku qanciyay Uzbekistan inay ku soo biirto golaha loo yaqaano The Cooperation Council of Turkey Speaking States waa dalalka ku midoobay ku hadalka luqadda Turkiga ee markaasi la sameeyay sanadkii 2009kii taasoo markaasi ka kooban dalalka ama ka kooban dalalka la kala yiraahdo Azerbaijan, Kazakhstan iyo Turkiga iyo haatan Uzbekistan oo ku soo biirtay gaashaanbuurtan ayaa waxa ay sidoo kale iska gaashaanbuuraysan doonaan oo ay heshiisyadooda ku jirta dhinaca difaaca warshadaha wax soo saarka beeraha tacliinta iyo waliba markaasi laan kasta oo ku saabsan horumarinta markaasi dalalkaasi madaxweynaha dalkaasi Uzbekistan oo ka hadlayay shir jaraa'id oo la hayay dhigiisa dalkaasi Turkiga oo wafdi culus oo hogaaminayo ay tageen dalkaasi Uzbekistan waa ninka la yiraahdo Shavkat Mirziyoyev ayaa wuxuu sheegay inuu ahaa go'aan culus oo qeexayay in markii ugu horeysay Uzbekistan ay ku biirto golaha afka ama dalalka ku hadla afka Turkiga isla markaana ay ka faa'iideystaan buuri golaha dhaqaalaha difaaca iyo waliba gaashaanbuurtaas oo haatan si xoogan uu madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan xoojinayo wuxuu yiri waxaanu lahayn buuri wada hadallo dheer madaxweyne Erdogan waxaana runtii aanu ku qanacnay buuri soo bandhigista iyo kaabayaasha xoogan ee ururkaas ilaa haatan uu ku talaabsaday iyo in dib loo xoojiyo ururkii oo laga dhigo mid wax ku oola ayuu u sheegay markaasi guriyaasha madaxweyne Mirziyoyev Mr Mirziyoyev wuxuu intaas ku daray in Uzbekistan calankeeda sidoo kale lagu dari doono ama uu ka babad doono buuri golaha markaasi ama golaha wada shaqeynta dalalka ku hadla af Turkishka Uzbekistan sidoo kale waxay ka qayb gali doontaa buuri shirka ka dhici doona caasimadda Kazakhstan Bishkek kaasoo markaasi noqon doona buuri wuxuu ugu yeeray go'aankii ugu muhiimsanaa Rajab Tayyip Erdogan oo dhankiisa ka hadlay isla markaana ku jooga caasimadda dalkaasi
booqasho 3 maalmood ayaa wuxuu sheegay in waa cusub u bariyay buu dalalka ku hadla afka Turkiga isla markaana aysan ku ekaa doonin buu in dalalku xagga dhaqanka iyo afka iska kaashadaan ay heshiisyadoodu noqon doonaan buu kuwa isku dheelitiran buu oo ku saabsan dhinaca markaasi dhaqaalaha wuxuu yiri siyaasadda militariga dhaqanka iyo difaaca warshadaha iyo sayniska waxaana uu sheegay in ay sidoo kale kor loo qaadi doono dhaqaalaha dalkaasi uu ku bixiyo maalgelinta dalalka noocaas oo kale ah waxaana shirkadda hay'adda dhinaca markaasi maalgashiga dalkaasi ee Turkiga u qaabilsan ay ku dhawaaqday in ay gali doonto lacag gaadhaysa $60 milyan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi sidoo kalena billion dollar ay la gaarsiin doono baa la yiri dhinaca maalgashiga dhinaca tabarta iyo militariga waa hay'adda ayaa waxay sheegtay hay'adda la yiraahdo Turkish Cooperation and Coordination Agency xogayaha gaashaanbuurta intayna ka bixin wararka Turkigana xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Stoltenberg ayaa ama Jens Stoltenberg ayaa markii ugu horeysay wuxuu ugu baaqay dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa midowga Yurub in ay liqaan buuri wuxuu ugu yeeray awoodda dalkaasi Turkiga oo markii toddobaad ku celiyay wuxuu yiri waxaad eegtaan ama aad si fiican u eegtaan buuri khariirada marka aad doonaysaan Turkiga inaad qeexdaan Turkigu wuxuu yiri waa dal meeqaam wuxuu yiri waa xulufo meeqaam sare leh Turkigu wuxuu muhiim u yahay buu yiri amniga caalamka gaar ahaan kan reer galbeedka oo dhan oo ku yaalo meel wadna wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dagaalka looga soo horjeedo kooxaha wax qarbada sidoo kale wuxuu muhiim u yahay buu yiri dhaqaalaha caalamka ee Korea iyo waliba horumarada dalkaasi ee dhinaca dhaqaalaha laga gaaray marka si fiican u fiirsay buu yiri Turkigu wuxuu ku yaalaa meel geographically wuxuu yiri markaasi geography ahaan buu yiri meel muhiim ah oo caalamka muhiim u ah wuxuu xuduud la leeyahay buu yiri dalal kamid ah dalalka haatan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jiraan isla markaana uu si xoog ah soo xakameeyay isagoo tusaale soo qaatay Iraq iyo Syria wuxuuna sidoo kale sheegay in Turkigu uu yahay muhiimka ama lafdhabarta gaashaanbuurta NATO inkastoo Turkigu si xawli ah ku socdo buu yiri haddana waxa laga maarmaa buu yiri in wax kasta oo la doonayo in laga dhaadhiciyo oo ku saabsan buu yiri kolka ay timaado markaasi gaashaanbuurta NATO ama ururka gaashaanbuurta loo yaqaan Northern Atlantic Council in ay markaasi ku qanciyaan si degan oo qabow buuri wax kasta oo ay doonayaan inay u sheegaan Mr Stoltenberg ayaa in badan ugu celceliyay dalalka reer galbeedka inay Turkiga la tacaamulaan isla markaana gacan saaxiibtinimo u taagaan hase yeeshee waxa muuqata inta lagu kari laayay halka nagala socotaan warfadhi media madaxweynaha Nigeria Buhari ayaa ku sugan aqalka cad ee Washington madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo dhaweeyay aqalka cad dhigiisa dalkaasi wuxuuna ugu baaqay Nigeria in ay qaado xanimaadaha ku saabsan ganacsiga xorta haday doonayso in Mareykanka uu balaariyo lacagta markaasi dhinaca markaasi ganacsiga ee uu leeyahay Nigeria madaxweynaha dalkaasi Maxamuud Buhari oo ku sugan magaalada Washington ayaa wuxuu uga mahad celiyay Mareykanka ka caawinta ay ka caawiyeen dalkanada la dagaalanka kooxaha wax qarbado oo ay ka mid tahay kooxda Boko Haram wuxuu yiri waxaanu aad uga mahad celinaynaa isla markaana ugu faraxsanahay buu yiri ciidamada Mareykanka oo naf ahaan ku sugan buuri jidaha hore isla markaana tababar siinayay buuri ciidamadannada qaarkoodna ay galaan buuri frinta hore ee dagaalka ee waqooyi bari dalkaasi ka soconaya si ay u eegaan buuri casharadii ay bixiyeen iyo sida ciidamada ugu halgamayaan ka adkaanta kooxda Boko Haram ee wax qarbada buuri wuxuu intaasi ku daray Mr Buhari in ay Mareykanku oofiyeen wuxuu ugu yeeray ballanqaadyadii ku saabsaneed in kooxaha wax qarbada dunida laga saafo ama laga sifeeyo wuxuuna Buhari intaasi ku daray in uu doonayo dalkiisu inuu ka faa'iideysto buurin dhaqaalaha dalkaasi Mareykanka ee gaar ahaan maalgashiga hase yeeshee madaxweynaha dalkaasi Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu ka fakarayo 2 jeer intuusan wax cilaaqaad dhaqaalaha la samaysan dalkaasi isla markaana uusan kor u qaadin bilaayiin dollar oo uu dalkaasi ku maalgeliyo ka hor inta ay wada ka qaadayaan ayuu yiri ganacsiga xorta ah isla markaana ay ogolaanayaan halka naga daawanaysan waa horfadhi media wararkii ugu dambeeyay dunida Maxamed bin Salman bin Abdulaziz MBS ayaa markii ugu horeysay war yaab leh oo uu ka sheegay kulan hoose oo ka dhacay magaalada New York ee kamid magaalooyinka ugu waaweyn dalka Mareykanka oo la yeeshay kooxaha u ololeeya Yuhuudda ee markaasi jaaliyadaha ah iyo maalqabeennada qaarkoodna ay ku jiraan aqalka Senate-ka ee aqalka odayaasha dalkaasi Mareykanka ayaa la soo daabacay wakaalad markaasi wararka faafisa ama website wararka faafiya oo uu qoro rugcadaaga
ka hadla TV-ga loo yaqaano channel 10 ama channel 10 Bragg Rayford la yiraahdo website-ka la yiraahdo Access website ayaa wuxuu markii ugu horeysay soo bandhigay kulan aan la mahadin baa leeyahay oo halkaas ka dhacay Bragg Rayford ayaa wuxuu sheegay in kulanku markii uu furmay uu Maxamed bin Salman bin Abdulaziz khudbad ka jeediyay isla markaana wuxuu yiri in badan ayaa dadka reer Falastiin ama madaxda Falastiinta waxaa la hordhigay buu yiri mowduucyo ku saabsan wada hadallada iyo geedi socodka tubta nabadda ee bariga dhexe iyo in xal loo helo dagaalka daba dheeraada ee halkaas ka soconaya waxaa lagu qanciyay buu yiri ama la isku dayay buu dhowr jeer in la yiraahdo qaata waxyaalahan aanu keenay ama barnaamijyadan laga soo shaqeeyay waxayna qaadatay buu yiri 10 sano intaas ay qaadato waxayna hogaamiyaasha reer Falastiin ay dhumiyeen buu yiri dhammaan buu yiri fursadihii la siiyay ayagoo dhamaantood wuxuu yiri proposaladii ama wuxuu yiri markaas isku dayadii dhinaca nabadda oo dhan tuuray wuxuuna sheegay in ay taas tahay mid u xun wuxuu yiri reer Falastiin ama madaxda reer Falastiin waxaan idin sheegay ama aan ugu baaqi lahaa in ay qaataan go'aamada iyo waliba wuxuu yiri markaasi hindisaha Mareykanku wado ama ay aamusan oo ay afka xidhaan oo ay joojiyaan buur calaalka iyo cabashada joogtada ah ee had iyo jeer caalamka ka daba socda hadalkan ayaa wuxuu noqday dhulgariir inta badan warbaahinta caalamka oo dhan ayaa si weyn u qoraysay isla markaana u faafinaysa sidoo kalena wariyaha dhinaca wararka dulmaasiyada ku caan baxay ee ka hadla channel shabakada ama TV-ga la yiraahdo channel 10 sidoo kalena website-ka Access leh ayaa bartiisa Twitter wuxuu ciwaan uga soo dhigay war weyn wuxuu yiri Amir Mohammed bin Salman ayaa hogaamiyaasha wuxuu yiri Yuhuudda ee dalka Mareykanka sidan u sheegay isaga oo sawirkiisa iyo waliba linkigi warkana soo raaciyay waxaana ay tan ka mid tahay wararka ugu waaweyn ee caalamka tan ama ay ka mid tahayba wararka ugu waaweyn iyo waliba ciwaanada ugu waaweyn ee wararka caalamiga gaar ahaan warbaahinta reer galbeedku aad u tabinayaan inkastoo aan ku arag warbaahinta kale daawadayaasha qiimaha leh qodobada dambe iyo wararkeena dulmaasiyada ha moogaanina saacadaha ama daqiiqadaha soo socda